السلام عليكم دمانتين waxaan rajeyneynaa caafimaad qabtaan waxaan kusoo jirnay taxanayn aan kaga sheekeynay listening examka question type-keeni saddexaad baan maanta ka hadli doonaa oo ah plan ama map lagu siinayo ama diagram labeling marka sida looga shaqeyn karaayo examples real life ama real exam ayaynu isleegi doonaa kabacdi codkan wada dhegeysan doonaa kabacdi waan ka wada shaqeyn doonaa waxaan isleegi doonaa magaranaysaa processka la maraayo iyo saa magaranaysaa looga shaqeynayo marka question type-keena saddexaad muxuu yahay question type-keena saddexaad waxaa lagu siinayaa plan ama map ama diagram baa lagu siinayaa marka kabacdi waxaa laga qarinayaa pointska qaarkood marka haddii doonto waxaa lagu siinayaaba iskuulkii marka lagu siiyo ayaa locationskii qaarkood magacyadii waa laga qarinayaa dabadeed xarfaa lagu siinayaa tusaale oo kale kaas oo kale b buu ahaa codka markaad maqasho ayaad kuwan sheegi doontaa iyo waxay yihiin iyo magacyada loo yaqaano adigoo codka ka dhegeysanaya fill in the visual aid with information visual aid waxaad lagu siin doonaa visual aid waa mapkan ama diagramkan ama plankan lagu siinayo ayaa lagu siin doonaa oo information la socdo sidoo kale waxaad expect garanaysaa inaad dhegeysato visual clues in lagu siiyo directions tusaale ahaan kale lagu siiyo north east oo kale lagu dhaho north east saynu example ku arki doono north east oo kale maxay noqonaysaa directionskiisa ma yihiin ma garanaysaa east west iyo north southkii hagaas oo kale maxay noqonaysaa north east bay noqonaysaa then kabacdi hagan oo kale maxay noqonaysaa north west bay noqonaysaa ama west north marka maxaynu isleegi doonaa waxaan isleegi doonaa visual clueska aad haysato iyo keywordska understand directions fahan direction wordska tusaale ahaan kale waxa lagu oran karaa right u leexo marka halkaa marayso right u leexo right usii leexo ama midig usii leexo ama bidix u leexo adigu directions baa lagu siinaya marka directionska inaad fahanto ama ereyada directionska ayaa aad u muhiima tipiska aynu haysanaa halkan waa maxay badanka waa isku wada mid inta magaranaysaa read the information and the questions mar walba informationka lagu siiyo titleka lagu siiyo inaad iska akhrido ayaa muhiima oo si aanad ugu khaldamin halkii lagu yiri one word ku buuxiyo kala inaad iska buuxiso saddex word kala dhici karta marka muhiimaddu waxa weeyaan inaad informationka marka hore akhrido inaad questionska lagu siiyo akhrido underline the keywordska mar walba ku celcelinaa inta underline the keywordska lagu siiyay mar walba underline garayso ama fahan pay attention to the directions attention-kaaga oo dhan geli si aad directionska ula socoto waayo haddii lagu dhaho iminka tusaale kale midig u leexaa lagu yiri adna bidix baad u leexatay bidix baad ka diidaysaa informationkii midigna weeyaan baa laga rabaa markaasoo kale maxaa muhiima inaad attention waaliya siiso directionska take notes along the visual aid and noteskaga qaado adoo isticmaalaya visual aidka ama mapkan lagu siin doono balan isleegno exampleka waxaa la siiyey guri magaca le fairly ayaa la siiyey marka halkan maxaa inoogu yaala badanka meel buu ka bilaabmaya codku marka entrance oo kale uu ka bilaabmaya entrance oo kale wuxuu ka bilaabmayaa albaabka oo kale albaab baa lagu siinayaa imika xaga wuxuu ka bilaabmayaa car parkan ama meeshan lagu baarkin gareynayo gawaarida oo kale xaga maxay noo yaalo kale sidoo kale xaga waxay noo yaala directionska xaga maxay noqonaysaa north kii bay noqonaysaa haddii lagu yiraahdo dhinaca u leex maxay noqonaysaa east u leex noqonaysaa haddii lagu yiraahdo west bay ka hadlaynaa west maxay noqonaysaa dhinaca xagana the south marka mapka ayaa muhiim ah inaad mar walba iska sii eegto dhinacayba west iyo dhinacayba north dhinacayba ma garanaysaa south ama north ama west marka muhiimaddu waxa weeye inaad sii fahanto marka hadduu halkan ka bilaabmo halkan maxaa laga rabaa jiidaas oo kale baa jirta imika inta ma laga rabaa marka xarfaha inta soo qaadato kii saxa ee uu ku tilmaamay baad halkan ku qoraysaa kolba kii lagu siiyey waxaad ma garanaysaa wixii kula saxsanaaday codka ka maqasho baad halkan ku buuxinaysaa empty space-ka marka halkan waxaad haysataa a b c d e f g h marka intaasoo ku dhani waxa weeye waa empty space-ka lagu bambaneeyey ma garanaysaa intan midkood 6 5 ku sax noqon doona markaas ma leeka xitaa wad arkaysaayo
magaranaysaay maxay ka kooban yihiin 1 2 3 4 5 6 7 8 xagana waxa lagu siiyay 5 kaliya marka si lagu khalkhaliyo baa loogu talagalay in magaranaysaay laga badiyo waxa haysato kuwa lagu siiyayna laga yareeyo marka imika waxa isleegi doonaa bal codkan wada dhageysan doonaa kuwan ma ahayna muhiimadu inaad fahanto ama macnahooga inaad garanayso ama ma garanaysaay inaad mar walba aad fahansantay macnahooga laakiin muhiimadu waxa weeyaan halkay ku yaalaan inaad fahansantay ama ma garanaysaay halkay ku yaalaan aad keeli karayso inaad garato weeyaan laakiin muhiimadu maaha ereyga garashadiisa maaha marka codkan isla dhageysano aynu wada dhageysano wuxuu ka bilaabi doonaa kaas oo ka bilaabi doonaa dhinaca uu la xukooran karaya wadooyinka waa baatiska yaryar weeyaan xagan 2 building baa ku yaala old stables mid la yiraahdo mid house ay ku qoran tahay kabacdi xagan waxa ku yaala 2 lake oo kala duwan mid uu yar yahay kan ba smaller kana waxa weeyaan ma garanaysaa large weeyaan isaga laftarkiisa bal wayna eegi doonaa geedaha halka inoogu yaal xagana geedaha inoogu yaala marka bal aynu isla eegno oo aynu isla dhageysano codka kabacdi aynu ku wada shaqeyno oo aynu isla eegno waxyaabaha aynu ka fahnay maapkan saa looga shaqeyn karayo. 16 to 20. Now listen and answer questions 16 to 20. Now, on Sunday, we'll be taking our visitors to Farley House. You may not all be familiar with it, so here's a map to help you. You can see the car park at the bottom of the map. There's an excellent farm shop in the grounds where our visitors can buy local produce. It's in the old stables, which is the first building you come to. They're built round a courtyard, and the shop's in the far corner on the left. There's also a small cafe on the right as you go in. I know that 1 or 2 of our visitors may not be all that mobile. The main entrance to the house has a lot of steps, so you might want to use the disabled entry. This is on the far side of the house from the car park. Children will probably be most interested in the adventure playground. That's at the northern end of the larger lake, in a bend on the path that leads to the lake. There's lots for children to do there. There are a number of lovely gardens near the house. The kitchen gardens are rectangular and surrounded by a wall. They're to the northeast of the house, quite near the smaller lake. They're still in use and have a great collection of fruit and vegetables. The Temple of the Four Winds is a bit more of a walk, but it's worth it. Take the path from the car park and go past the western sides of the stables and the house. Then, when the path forks, take the right-hand path. Go up there with the woods on your left, and the temple is right at the end. There are great views over the whole area. OK, so that's... That is the end of part 2. You now have 30 seconds to check your answers to part 2. aynu isla eegnay imakana answerskeena sidii aynu ku arkaynay ma garanaysaay codka aynu ku maqlaynay imaka scriptkii baan haysanaa halkan su'aalaha markaan akhrino question 16ka. Nowadays and now on Sunday we'll be taking our visitors to Valley House. You might not all be familiar with it, so here's a map to help you. So you can see the car park at the bottom of the map. Halkan buu ka bilaabay car park at the bottom of the house. Wuxuu yidhaahday at the bottom of the map there is an excellent farm shop. Farm shop waa
intayn doonay oo ah ka ugu horeeya weeyaan Soomaa mid kale la soco mar walba sida u kala horeeyaan baa lagu kala bilaabaya badanka and where our visitors can buy local products meel ay ka iibsan karayaan ama farm shop ka iibsan karayaan visitorskan soo booqday local productionska ama waxyaabaha la soo saaray localka it's in the old stables buildingka old stables la yiraahdo ayuu ku yaalaa maxaa lagu yiraahday wuxuu ku yaalaa they are built around the courtyard and the shop is in the far corner on the left far corner waa koornaha on the left oo dhinaca bidix xag u noqonaya jiidaas u noqonaya dhinacan kale muxuu noqdeen there is also a small cafe on the right as you go in small cafe ayaa ku yaala midigta baa lagu yiraahdaa marka kan baa cafe noqonay cafeegina lama weydiin laakiin mar walba waa inaad magaranaysaa aanad ku khaldamin hadhow haddii magaranaysaa mid kale aad ku khaldi lahaydba cafe taas weeyaan okay disabled entry waxa ku noqonaya I know that one or two of our visitors might not all that mobile dadka qaarkood baan saa u socon karin buu yiraahday marka main entrance-ku wuxuu leeyahay jaranjarooyin badan main entrance-ka house-ku waa kan main entrance-kiisuna waa kan marka waxa la yiraahday wuxuu ka soo geli karaysaa disabled house-ka oo far side of the house from the car park dhinaca fog ee guriga ka fog car park dhinaca baa u dhow imaka entrance-kan iyo entrance-kan ka baa u dhow car park kan baa u dhow Soomaha kan baa u dhow kan uu keer fogay marka kan baa noqonaya disabled entry-ga children will probably be most interested in the adventure playground that's the northern end of the larger lake this is the larger lake right marka hore in isla seegnay keebaa weyn iyo keebaa weyn kan lake-gan uu yar yahay lake-gan uu weyn yahay marka waxa ila lake weyn ama harada weyn dhinaceega north end-keega north-ka xaq u noqonaya dhinacan buu noqonaya Soomaa dhinacan end-kiisa ama xaq ku dhamaanayo meesha ay wadadu ka soo qalocsanto halkaas ku meeshan gareeba in a bend of the path that leads to the lake halka wadada lake-ta tagta ay ka soo qalocsanto halka hadaan si fiican u eegno wada yar baa mata oo luuqa xagga ka soo qalocsantaana wataa marka halkaas maxay noqonaysaa halkaas ku taala buu yiraahday meesha ciyaalku ku ciyaarayaan marka biida ayay noqonaysaa kitchen gardens ku halka ku yaalaan buu yiraahday there are a number of lovely gardens near the house the chicken gardens are rectangular markiiba maxaad arkaysaa meel kale oo rectangular kuma jirto magaranaysaa aan all stable ka ahayn laakiin wuxuu yiraahdaa tan waa rectangular waxaana ku ag taalaa taa waxay noo sii cadaynayaa small lake-ta ayay ku ag taalaa halkan buu inoogu sheegay quite near the small lake marka maxay small lake-ta teebaa rectangular u dhow muxuu noqonayaa tan buu noqonayaa waxaana ku taalaa buu yidhi north east-ka building-ka ayuu ku yaalaa buu yidhaahday marka waxay noqonaysaa taasi dhiida ayay toos u noqonaysaa ta ugu dambaysa wuxuu yidhaahday waa inaad magaranaysa take the path from the car park waxaad qaataa wadada ka imaanaysa car park-ga markaa waxaad u neexataa dhinaca north-ka tooska u soco meesha wadada ku kala leexato oo halkana baad magaranaysaa dhinaca midigta u leexanaysaa markaad midigta u leexato ayaa waxa la yiraahdaa woodska ama geedaha agtooda ayuu ku yaalaa tambalku marka waxa noqonaya eeda mar walba maxaa muhiim ah marka inaad directionska la socoto oo directionska aad fahanto oo magaranaysaa aad la socoto qaabka magaranaysaa xagga u leexanayso iyo xagga aad magaranaysaa u socoto intaas oo muhiim ah waan iska fududahay insha Allah video badan oo ku sii sharxanay example badan oo ka sameyn doonaa good luck insha Allah waxaan rajeynayaa inaad si fiican ila fahantay comments ka noogu reeb waxaan fahminay insha Allah khayr badan baynu soo rajeynaa dhamaantiin